السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدن سلامي داوديال وأنيقو عبد القادر AK هكا إيقا داونيسين وا AK TV channel. رمضان كريم داوديال maanta waxaan bilaaway barnaamij waqti nasiib ah inkastoo aan ka soo daahay waxaan wataa saddex su'aal saddexdaas su'aal qofkii ka jawaabo wuxuu heli doonaa insha Allah awaalmarin. Intaan u guda galin barnaamijka daawadayaal waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe ii saartaan YouTube channelkayga beelkana aad furataan si aysan ku dhaafin fiidiyoyaasha soo socda ama aad u noqotid daawadaha ugu horeeyo. Barnaamijkan waxaad la socon doontaa maalin walba oo Jimco ah halka maalmaha kale fiidiyoyaal kale oo iska caadi ah aad kala socon doontiin YouTube channelkayga. Intaan barnaamijka u guda galin daawadayaal awaalmarinta barnaamijka maanta taala ayaa ah lacag $30 $30 waxaa ku guuleysan doona qofkii nasiib u yeesha inuu ka jawaabo saddexda su'aal ee aan wato oo maanta barnaamijka aan idinku weydiin doono. Haddii videogan uu helo 250 oo like ah waxaan insha Allah kordhin doonaa awaalmarinta barnaamijka su'aalahan insha Allah waxaan ka dhigi doonaa fudeed. Barnaamijka haddii aan hore u guda galno su'aasha ugu horeyso ayaa waxaa ah su-aasha ugu horeyso waxay u dhacaysaa sida tan. waxaa jirtay laba qof oo mataano ah oo la kala oran jiray Bill iyo Mark. labada mataanaha aad ay isugu egyihiin maalin walba waxay aadi jireen hal cafeteria si ay biyo uga soo cabaan. marka ninka oo biyaha gadgado nacbana kan Bill la dhaho wuxuuna rabay inuu dilo uu ka takhaluso gabi ahaanba. halka kaliya uu ku kala garan karan labadood qof uu ku kala saari kara ayaa waxay tahay Bill qofka la dhahayo markuu biyaha cabayo si tartiib ayuu u cabaa halka Mark biyaha uu markuu cabayo zaid uu u cabo macna hal mar uu wada dajiyo. maadaama uu rabay Bill inuu dilo Billna biyaha uu tartiib u cabo halka Markna biyaha uu zaid u cabo wuu u fikiray biyaha marka maalintii ku xigtay ay u imaadeen biyaha wuxuu ka dhigay galaasaska half ka wada dhigay oo uu isla ekeysiyay barafku uu biyaha ku soo ridayna way isla ekaayeen oo kanna ma badno Billkiisana ma badno oo uu ku soo riday sidaas ay tahayna sun ayuu ku soo daray biyihii. marka Mark wuu cabay biyihii halka Billna uu cabay sidaas ay tahay Mark biyaha markii hore zaid uu cabi jiray Billna biyaha slowly tartiib u cabi jiray. marka waxaa badbaaday Mark badbaaday waxaase dhintay kii biyaha tartiib u cabi jiray oo Bill la dhaho. ma aanidna ku hay biyaha sunta barafka oo bikeer lagu soo wada shubay way isla wada ekaayeen. marka u fikir waxa laga rabaa inaad soo saartid sababta Mark uu u badbaaday oo Bill uu u dhintay. sidaas ay tahayna la soco Mark biyaha asaa u hor cabay oo zaid ayuu cabay halka Bill uu biyaha tartiib u cabayay. sidaas ay tahayna Bill ayaa dhintay. marka jawaabta soo saar su'aasha koowaad way taas. intaan su'aasha labaad u guda galin waxaan ka codsanaa inaad video subscribe saartid lacag kaama gadno iska saar waa iska bilaash waa iska free videogana fadlan like isa. su'aasha labaad ayaa waxay tahay nin gaarigiisa isaga jira ayaa xabado lagu dhuftay wuuna dhintay ninkii. dharkiisi ama jirkiisana wax oo fare ah waa laga waayay ama wax oo calaamad ah oo cadeynayo dadka dileen. taasi marka waxay ku cadeynaysaa ninka toogtay ninkan gaaro ku jiro banaanka ayuu joogay oo banaanka ayuu ka soo toogtay. si fiican u dhigeyso maadaama ninkan banaanka laga soo toogtay gaarigiisa albaabiyaasha way xirnaayeen daaqadahana kor ayay u dalacnaayeen. markii meesha booliis imaatay ama investigation la sameeyay oo wax walba la baaray kaliya waxaa la ogaaday in xabadaha jirkiisa kaliya ay ka muuqatay daaqadaha may jabsaneen albaabka markii la baaray wax dulaal ah oo meeshan xabada ka soo baxday ama rasaasa ka soo dhaxbaxday la dhahayo maysan jirin. marka waxaa laga rabaa inaad soo saarto ninkan sidee loo dilay macnaha qaabkee how sidee possible ku tahay nin gaarigiis ku jiro oo banaanka laga soo toogtay gaarigiisa muraayadaha aysan waxba gaarin oo albaabiyaashana dulaal waxba aysan lahayn sidoo asaga ku dhintay ilaan xabadii banaanka laga soo toogtay ninkii gaari qaab noocay u soo dhaxmartay oo asaga ay u imaatay. su'aashaas laga rabo inaad ka jawaabto si fiican u fikir. waxaad haysataa 24 hours 24 saac ayaad haysataa
daawadayaal su-aasheena xigta ayaa waxay tahay amaba su-aal saddexaad oo barnaamijkeena ugu dambeyso ayaa waxay tahay nin ayaa gaarigiisii watay xaaskiisana dhinaca kale ayay u saarneed maadaama xaaskiisii ay buuq ka baadisay ay isku qaylqayliyeen mindi ayuu la soo baxay xaaskiisii ayuu ku mudmuday way dhimatay markay dhimatay meel cidlo ah qofna arkaynin ayuu istaajiyay gaarigii xaaskiisii ayuu garbaha soo qabtay oo wadada dhinaceeda ayuu dhigay mindadii ayuu soo qabtay farihiisii ayuu ka tirtiray si la alla haddii la baaro aysan farihiisii looga arkin wuu tuuray oo wuxuu ku tuuray meel duur ah kadib wuu iska soo baxay oo gaarigiisu soo qaatay xaafadiisu imaaday cabbaar kadib meeshii oo dilka ka dhacay booliisa imaatay telefonkeeda ay baareen waxay ku arkeen ninka lambarkiisa oo ugu qoran tahay ninkayga ama my husband lambarkii ka qorteen way waceen waxay u sheegeen in xaaskiisii duur cidlo ah lagu dilay oo ayna ka xun yihiin inay warkaan ay u sheegaan waxay kaloo ay ka codsadeen in meesha lagu dilay xaaskiisii si degdeg ah uu ku imaado isla markuu meesha uu iskeenay hadal xitaa lagama sugin waa la qabtay waa la jaabadeeyay waa la xiray waxaa laga rabaa booliista maxay oga shakisay ninkan mise sababta ay u xirtay oo xitaa hadal xitaa aysan oga sugin oo ay u xirtay oo stationka uu la aaday aa laga rabaa barnaamijkayga saddexda su'aal ayaan ugu talagalay qofkii ka jawaabo hal su'aal wuxuu helayaa $10 qofkii laba su'aal isku xigto ka jawaabo $20 qofkii saddexda su'aal ka jawaabo $30 ayuu helayaa waxaadna haystaa si aad uga jawaabto su'aalahan 24 saac video waxa expire noqon doona insha Allah waqtigan soo geliyay waqtigiisii ayaa 24 hours ah waqtigaas wixii ka dambeeyo jawaabo aan qabanayo ma jirto haddii xitaa aad saxdid wixii waqtigaas ka dambeeyo kaliya waxa ku dhihi karaa waad ku mahadsan tahay daawashadaada waad ku mahadsan tahay commentiga aad soo bixisay iyo maskaxdaada wanaagsan qaabkii aad uga shaqaysay asxaabay waxaan kaloo ka codsanayaa inaad YouTube-kayga subscribe ii saartid beelkana on aad dhahdid si lagu ogeysiiyo videoga markaan soo dhigo ama ba aad u noqotid daawadaha ugu horeeyo insha Allah videogeena xigo waxaan ku sheegi doonaa jawaabaha iyo qaabka aan u gaarsiin doono abaalmarintiisa ama ba anaga videogaas duubayno ayaa qofkaas abaalmarintiisa la gaarsiin doonaa aad xitaa noqon doontaa yaa isku day waxaan ku leeyahay nasiib wanaagsan waad ku mahadsantahay daawashada video aad daawanayso fadlan haddii aad ku cusubtay YouTube-kayga subscribe saar beelka on dhaho si aad u noqoto daawada ugu horeeya waxaan ku leeyahay is aragti dambe xiiso leh intaan ku kulmayno barnaamijkayga xigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh